kulanti wacan daawada meel walbo aad dunidan aad ka joogto kusoo dhawow mar kale iyo muuqaal kale. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa macluumaad kooban oo ku saabsan xasharaad ama cayayaan loo adeegsan kara basaasnimada. waa ay tiro badan yihiin cayayaanka ama xasharaadka loo adeegsan kara basaasnimada, laakiin halkan waxaan kusoo bandhigi doonaa qaar ka mid ah xasharaadka loo adeegsan karo inay sirdoon ahaan ay ugu shaqeeyaan ciidamada iyo dowladaha caalamka. shirkad laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa soo saartay xasharaad ama cayayaan yar oo loo adeegsan kara hab basaasnimo ah. waxaa lagu magacaabaa Dragonfly. kaas waxa uu awood u leeyahay in meel walba uu galo isla markaana uu ka soo duubo waxyaabaha sirdoon ahaan loo adeegsan karo. Dragonfly ayaa ah mid waqtigan qaybo badan oo kamid ah ay ku jiraan habka sameynta iyadoo loo ekeysiiyay cidida qofka bini'aadamka, halka kuwa kalena ay waxoogaa ay ka waaweyn yihiin. waxaa kaloo xasharaadkan sidoo kale loo ekeysiiyay cayayaanada biiba oo dadka qaarkiid laga yaabo inay ku arkeen gobolada ama magaalooyinka ay joogaan. waxay sidoo kale ay leeyihiin baalal sida solarka oo kale ah, kuwaas oo si fudud u jaajargaraysmaya. waxay jaajgaraynayaan baalasha iyo sidoo kale baytariga uu ku duulayo qalabkaasi. waxay khubarada shirkadani ay sheegeen in loo adeegsan karo cilmi baarisyada iyo sidoo kale howlgallada ay sameynayaan ciidamada ammaanka. Chase Wheeler waxa uu ka mid yahay shirkadda soo saarta xasharaadkan aadka u yar. isagoo u warramaya wargeyska Daily Mail waxa uu sheegay in xasharaadkan yar ay u adeegsan karaan inay ku daraan xasharaadka kale. waxa uu sidoo kale uu sheegay inay dabeecad ahaan ay u sameeyeen qalab si fudud ula falgeli karaya xayawaanada kale. waxay khubaradan xasharaadka yare ee u sameeyeen qalab la yar bixinaya, kaas oo la sheegay in uu sii dirayo fallaadho. waxaa lagu ogaan karayaa hadba halka uu marayo. waxaa sidoo kale ku xiran anteenooyin si fudud ugu xirmaya hadba xarunta laga hagayo cayayaankan. waxaa taasi ay suurto gelinaysaa in macluumaad badan uu gudbiyo maadaama ay ku xiran yihiin qalab si degdeg ah macluumaadkii uu duubo ugu gudbinayo xarunta laga hagayo, taas oo ciidamada ka saacidi karaysa inay macluumaad badan ay helaan. waxaa kaloo xayawaanadan sidoo kale loo adeegsadaa ama filimada qaar aad ka aragteen marka la doonayo in lasoo basaaso xarun ay adag tahay in gudaha loo galo, maadaama cayayaanadan ay adag tahay dadka qaarkii inay ka shakiyaan. mararka qaarkii waxaa laga yaabaa inaad maqashay xayawaano dhanka badda ah, kuwaas oo dowlada qaarkii ay qabteen. waxaa mararka qaarkii la sheegaa inay yihiin kuwa sirdoon ahaan loo adeegsado maadaama qalab ay ku xiran yihiin. waa markii labaad oo khubaradani ay tijaabooyin ay ku sameeyaan cayayaankan yar iyada oo lagu tijaabiyo meelo kala duwan oo laabab ah. waxaa sidoo kale la doonayaa in loo diyaariyo in lagu tijaabiyo meelo beera ah iyada oo lagu sii dhex daynayo cayayaano kale kuwaas oo isu qaab eg yihiin si loo fiiriyo siday isula falgalayaan. midkan waa mid kale oo loo diyaariyay inuu wax soo basaaso oo qalab ayaa lagu xiray. muddo ayaa laga shaqaynayay in loo ekeysiiyo xayawaanka ama cayayaanka uu qaab eg yahay. waa ay sahlan tahay in la isticmaalo markan oo waa laga fikiray qalabkii la doonayana waa ay ku xiran yihiin. midkan waxaa loo ekeysiiyey shimbir biibaysa oo kale. tani waa ay ka duwan tahay cayayaanada kale. waa xayawaan biibaya laakiin dadka ay hore ay ka fahmi karayaan maadaama aan loo diyaarin in uu sida shimbirtii oo kale u biibo. waxa uu u biibayaa sida hadda uu u taagan yahay, waxaana afarta qaybood ee uu ku taagan yahay ka yeeraya guux la dareemi karaya dhawaqa qalabka ku xiran, laakiin waxaa loo adeegsadaa in wax lagu basaaso. kanina waxa loo ekeysiiyey shimbir aad u cad oo ah shimbirta nabadda, balse waa qalab loogu talagalay in wax lagu basaaso dadkana aysan ka shakin, waxaana u biibaysaa sida caadiga ah oo kale. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalada kala duwan in halkan aan kusoo gudbiyo. warbixintani waxaa diyaariyey Maxamed Axmed Yuusuf. macluumaad kale oo la xiriira xasharaadka loo adeegsan karaya dhanka sirdoonka ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah. muuqaalkan muuqaalka xigantaan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.